magacayga Saciid Maxamuud Gahayr baa la yiraahdaa. Saciid soo dhawow. Saciid qoraagi. ها والله صنتي حسين عبد الله الدقسي وزيرك يبقى لهذا كسر قيب كلام مناسبة دون سلام يا وزيركو مركو هذا ولا يروح القرى دقيقة وحبر شو والله بسوقه كلبيه ويجوا بين وزيره وحن الأرض دقيقة أساسا العقل ويجيني يسوي لها هذا وسألته لما يبحثون الحوينها العقد كبيحين كده مبين تاسواتا laba shaqaalood baan doonayaa inaan weydiiyo wasiirka meel dheer rawan weyn wadka koobaad waxaa jira xeer shaqaalaha Somaliland iyo madaxda kala saara 96 iyo 2021 baa la soo kala saaray wuxuu leeyahay qofka shaqaalaha hadduu qaldamo inuu hor fadhiisanayo guddi uu gudoomiyo yahay agaasimaha guud agaasimo waaxidina ay ku jiraan laakiin wasiirku intuu yimi wuxuu jeeb kala soo baxay guddi aan saxmarineed oo heer gobol ah wasiirku waa halkeebay sharciga kaga jiraan mase dhacday inaad shaqaalaysiisay inaad firma u tahay oo dadka ku soo xidhxidhaba iyo inaad la xidhi tahay talabaad waa manhajka bishii May 2021 wasiirka waxbarashadu isagoo aan ka noqonin heshiiskii ka dhaxeeyay Helma Bookis iyo wasaaradda waxbarashada wuxuu yiri madbacadda qarankan ku wareejinaa daawacadii manhaj suurtagal ma noqon isla junta waxa la shaqaalaysiiyay 8 macallin oo saxay manhajka dugsiga hoose dhexe iyo ka sare iyo 18 fatire uu ka mid ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Albani rag badan halkan way joogaan 6 bilood kadib waxa lacag lama siinin dadka shaqada loo diray wasiir macallimiinta noocaas ah ee ku shaqadoodii dhameeyay maxaa wala meeraysateen ama cirka ugu calaamadeen baa leeyahay tantahay waa yahay ka jawaab wasiir waan idin soo noqon doonaa ka qaybgalayaasha iyo suga aad baad Saciid u mahadsan tahay or Saciid waa markii igu warsay arkay waan maqli jiray uun markaas Saciid oo barasho wanaagsan taxeerka laba su'aalood baa weydiisay taxeerka dawladdeena maamulkeenu wuxuu dhisan yahay heer qaran heer gobol heer degmo Saciid oo su'aashii baa ka jawaabaya soo jeedo wuxuu u qaybsay heer gobol iyo heer degmo iyo sidaasuu buu kala hooseeyaa marka kiiska uu qofku galo ee lagu qaadayaa xataa maxkamadaha gobolka iyo degmooyinka iyo heerku kiisas kala jaada iyo waxay qaadaan iyo oo kala heera haddii shaqaaluhu halku ka tirsan yahay da way ku xidhan tahay hadduu shaqaalaha gobol ka tirsan yahay iyo haddii uu shaqaalaha heer qaran ka tirsan yahay marka de guddiga anshax marinta ee uu agaasimaha gudoomiyaha u yahay waa guddiga anshax marinta ee heer qaran laakiin waxaa jira guddiga anshax marinta ee heer gobol ee saas u soconaya taas waa mid tii shaqaalaysiinta bay horta wuxuu yidhi inaad abti ruma u tahay ma shaqaalaysiisay 780 qof baa la shaqaalaysiiyey inankaan abtiga ruma u hayo qura maxaa ku tusay meel Somaliland u dhalan waa kow laba qof si toosa aan u shaqaalaynay oo aan macallin ahayn ma jiro dadka xafiiska maamulka ka shaqeeya waxa lagu bedelay dad shaqada ka tagay waxaana soo gudbiya gudoomiyaasha gobolada markaas Saciid ma wax doonayaa inta liiska ka dhex baadho inaan idhaahdo ka saar adeer baan u ahay kan ka saar abti baan u ahay Saciidow markaa de waxaan u malanayaa qofka eelka de horta eel baynu wada nahay kulligeeni waad ma adeer iyo abti baan ku ahay
inankaama xididka waxa weeye laakiin qofka anigu aan adeer ama abti ee aad igu soo riixaysaa ku heli maayo waxba ku heli maayo ehel baan ku ahay wallahi inuna ku heli wanigaa kuu dhaatee hadduu laakiin xaq u leeyahayna ku waayi maayo abti ama adeer baan u ahay markaa waxba ha igu xuuqine facebookayni yaraa inoo wad mashii manhajka hadhay waxaan ka tegey su-aashii lacag bixinta anigo agaasimihii admin finance baa joogay dee detailska anigu ilaa halkaa ila waruma haye سعيد محمود قهرون هتسيهي هي لعقتاس ويتشفتي وانو بروسس كرن اسلا وقت جديبا وحنو قد بنا حسابات الجود انا لعق شبابها كبس انه لكن لعقت النظام يا بروسيتشر باي مرتد النظام بروسيتشر كاس وحفيز كحسابيها جود بنكيغا هانتي دوركا وميلها سودان حفيز كحسابيها جود بسوي عليي اني كان مركله بشن تشيري وان بحنا هذه الهيئه